dagaalamayaasha al-shabaab ayaa xalay weerar madaafiic ah ku qaaday magaalada dhuusamareeb ay ku sugan yihiin madaxda qaranka. farxaan maxamed xuseen ayaa ka waramaya. dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud xilli halkaasi ay ku sugan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa dowlad goboleedyada oo shalay gaaray magaaladaasi. goobjoogayaal ayaa keenan u sheegay in ilaa 10 hoobiye lagu garaacay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo muddo 30 daqiiqo ah dhawaqooda laga maqlayay magaaladaasi. wararka ayaa intaasi ku dareeyay in madaafiicda ay ka dhasheen khasaare soo gaaray dadka rayidka ee ku sugan magaalada dhuusamareeb. inta la og yahay 4 qof oo mid ka mid ah uu yahay askari ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay weerarka. ciidamada ammaanka ayaa saakay howlgallo ka dhana kooxda al-shabaab waxay ka wadaan duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. sidoo kale waxaa maanta aad loo adkeeyay ammaanka magaalada dhuusamareeb iyadoona dadka iyo gaadiidka loo diidayo inay isticmaalaan wadooyinka magaaladaasi. wadooyinka magaalada dhuusamareeb ayaa lagu arkayaa ciidamo aad u tiro badan kuwaasi oo sugaya ammaanka maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin madaxda qaranka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada. dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale hoobiyaal lagu garaacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kuwaasi oo laamaha ammaanka galmudug aan wax war ah ka soo saarin. siyaasiyiinta iyo khubarada ammaanka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in magaalada dhuusamareeb isagoo uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madax kale lagu garaaco hoobiyaal, arrintaasina ay muujinayso amni darrada baasan ee galmudug ka jirta. madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta shir waxa ugu furmaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug. axmed maxamed ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. sidoo qorshuhu yahay waxaa maanta magaalada dhuusamareeb ka furmaya shirka ay iskugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamulada dalka ka jira kan gobolka Banaadir. shirkan ayaa intiisa badan diiradda lagu saaraya sidii xal looga gaari lahaa khilaafka muddada dheer ragaadiyay hanaanka doorashada dalka iyo guddida loo magacaabayba. dhuusamareeb waxaa maanta ku wajahan madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi sida lagu cadeeyay war qoraal ah oo uu u diray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. hay'adda xalay waxa magaaladaasi ka dhacay kulan uu shir gudoominayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda Soomaaliya kaasi oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed Soomaaliya, Hirshabeelle iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda. isaaraga xalay ayaa hordhac u ahaa shirka wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ku saabsan dardargelinta hanaanka doorashooyinka dalka iyo sii ambaqaadida heshiiska 17 Sebtembar ee 2020 kaasi oo ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya labadiisa aqal. madaxda ayaa isla gorfeeyay dadaalada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee loo qaaday hirgelinta doorashooyinka, xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo midda amniga ee dalka sida lagu sheegay qoraal laga soo saaray xafiiska madaxweyne Farmaajo. shirkan ayaa waxaan door muuqda ku lahayn midowga musharaxiinta Soomaaliya kuwaas oo dalbaday shirka laga qayb galiyo hayeeshayna wax jawaab ah aan laga soo saarin arrinkaasi. shirkan ayayna ku tilmaameen musharaxiinta inuu yahay midka ugu dambeeya ee uu gudoomiyo madaxweyne Farmaajo ayna dhowrayaan in laga soo saaro qodobo waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed, dhaqaajiyana hanaanka doorashada ee dalka si ay u noqoto doorashadaasi mid lagu wada qanco. axmed mahadsanid. xaalad deganaansho ayaa saaka laga dareemaya deegaanka Xananbuure oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalameen maleeshiya beeleeda. Sharmaake Maxamed Maxamuud ayaa warkan cadaada ka soo diray. xaalad deganaansho ayaa saaka laga dareemaya deegaanka Xananbuure oo labadii maalin ee la soo dhaafay uu ka socday dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo walaalo ah oo halkaasi wada dega. inkastoo gurmadyo badan soo kala gaareen habeenkii xalay ahaa labada dhinac, haddana xaaladdu waa mid xasilan subaxnimadan. hase yeeshee waxaa la filan karaa saacad kasta in dagaal ka dhex qarxo maadaama labada maleeshiya sor fadhiyaan islamarkaana aysan jirin cid ku kala dhex jirta. inta badan dadkii ku noolaa deegaanka Xananbuure ayaa iskaga barakacay gudaha magaalada iyo deegaanada ku dhow waxaana dadka cabsi badan ay ka qabaan in waxyeelo ka soo gaadho hubka la isku adeegsanayo oo ay ku jiraan qoryaha waaweyn ee saaran gawaadhida. dhinaca kale ma jirto ilaa hadda cid ku baxday dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanka Xananbuure oo 45 kiiloomitir u jira caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin madaxda ugu sarreysa Galmudug. Sharmaarke Maxamed Maxamuud, Radio Kulmiye, magaalada Cadaado. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya isku dhacyo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ku dhex maray ciidanka difaaca Soomaaliya iyo militariga Kenya. Xasan Maxamed Aweys.
isbitaal ku yaala magaalada Mandera ee dhaca xadka Soomaaliya iyo Kenya ayaa la soo sheegayaa in lagu daweynayo laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka Kenya oo ka mid ahaa kuwa ilaalada gaarka ka hayay xadka Soomaaliya iyo Kenya waxaana la tilmaamay in ay rasaas ay kala kulmeen ciidanka qaranka Soomaaliya ee dhinaca xadka ku sugan. Jariidada Nation ee ka soo baxda Kenya ayaa daabacday in saraakiishan dhaawaca uu soo gaaray ay ahaayeen kuwa u xilsaarnaa meelaha laga soo galo iyo meelaha laga baxo ee xadka Soomaaliya iyo Kenya. Edwin Sida, taliyaha booliska Mandera oo gaaray goobtii dhacdadaasi ay ka dhacday ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan sidii ay wax ay u dhaceen waxaana uu diiday in uu tafaasiil dheeraada ka bixiyo. Sida waxa uu cadeeyay in saraakiisha dhaawacmay uu muran dhex maray ganacsato Soomaali ah oo doonaysay in ay badeeco ay ka qaadaan magaalada Balad Xaawo ayna u iibgeeyaan magaalada Mandera. Qof taksiila oo warbaahinta Kenya la hadlay ayaa sheegay in uu ka mid ahaa dadkii goobta ku sugnaa. Waxaan arkayay muran dhex maray ganacsatada iyo saraakiisha booliska Kenya ee Mandera. Hal mar ayaan ka war helnay rasaas noogu socota ayuu yiri. Taksiilahan uu diiday magaciisa in warbaahinta loo adeegsado. waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in uusan arag cidda rasaasta soo ridaysay balse ay ka soo dhacaysay dhinaca ay joogaan ciidanka Soomaaliya. waxaa jirta sidoo kale in sarkaal saddexaad uu dhaawac fudud oo ka soo gaaray rasaastaasi. warbaahinta Kenya gaar ahaan Deisa ayaa iyadu waxa ay daabacaysaa in ciidanka Kenya uu muran dhex maray sidoo kale gabar Soomaali ah oo iyadu ka mid ahayd dadka ganacsatada ah ee wax u iibgeeya magaalada Mandera. waxaana shaki laga muujinayaa ayaa la yiri in ay taasi ay qasabtay murankaasi dhex maray labada dhinac in ciidanka Soomaalida ay rasaas ay soo rideen. taliyaha booliska Mandera Edwin Sida ayaa sheegay in baaritaanka ay sameynayaan ay wax waliba ay ku soo xaqiijin doonaan. Xasan Cali oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sheegay in lacago badan oo baad ah ay ka qaadaan ciidamada Kenya ee xadka ku sugan kuwa kalena ay u raacaan ilaa iyo goobtoodii ganacsiga oo lacago badan ay ka soo qaataan. xasan mahadsanida. taliska booliiska Soomaaliya ayaa xalay kormeer ku sameeyay xaafado ka mid ah Muqdisho kadib markii ay kordheen weerarada al-shabaab ay ka geystaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Cabdisataar Xaaji Cali. kadib markii maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho caasimadda dalka ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal qorsheysan ayaa xalay waxay ciidamada ammaanka ay baaritaano ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sarreeye Guuto Cusmaan Cabdullaahi Maxamed Kaniif ayaa xalay kormeer ku tagay qaar ka mid ah saldhigyada degmooyinka Xamrooyne Shibis Boondheere isaga oo taliyaasha ciidamada kula dardaarmay feejignaan dhanka ammaanka ah. taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu ciidamada booliska Soomaaliya ka dalbaday inay sugaan amniga degmooyinkaas si looga hortago falalka amni darro ee ka dhaca magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay martigelisay weerar isxiga kuwaasoo ay mas'uuliyadooda ay sheegteen al-shabaab. habeenkii xalay ahayd koox hubaysan ayaa weerartay guriga gudoomiyaha degmada Dayniile Jacfar Abuukar oo ku yaala degmada Howladaag ee gobolka Banaadir. goobjoogayaal ayaa sheegeen kooxda weerartay guriga gudoomiyaha ay toogteen mid ka mid ilaalada guriga gudoomiyaha kadibna ay goobta ka baxsadeen. falalkan amni darro ayaa waxay ku soo aadayaan xilli dalku u diyaar garoobayo doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtooyada. warka subax ayaad degeysanaysaan radio kulmiye. markana wararka dibadda. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo Talaado ah waxay fadhi degdeg ah ka yeelan doonaan xaaladda guud ee dalka Myanmar oo ciidanka ay afgambi subaxnimadii Isniinta kula wareegeen awoodda dalkaasi iyagoona xabsi guri ka dhigay qaar ka mid ah hogaamiyaasha waddankaasi. madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka John Biden ayaa ugu baaqay militariga inay awoodda dib ugu celiyaan madaxda dalkaasi isagoona qaar ka mid ah wadamada caalamka ugu baaqay in cadaadis xoog ah la saaro